waa ciidamadii ugu badnaa oo ka ambabaxay deegaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland kuwaas oo ku sii jeeda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. haddaba maxay yihiin ciidamadan tirabeelka ee ka ambabaxaya deegaanada maamul goboleedka Puntland muxuu yahay qorshahooda iyo sidoo kale ujeedada ugu weyn ee ugu ambabaxeen deegaanadaasi xog faahfaahsan oo arrintaasi la xiriirta ayaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale aad daawan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu markii ugu horeysay uu ka hadlay arrinta aqoonsashada Somaliland waxaana uu si adag markaas u cambaariyay Somaliland. haddaba maxay tahay eedeymaha iyo xogaha faahfaahsan oo Axmed Madoobe uu bixiyay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu ka hadlay iyo in 20ka bishan meesha loo gaaro uu qaadi doono tallaabo degdeg ah isagoona sidoo kale ku dhawaaqay xaalad culus iyana sidoo kale muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. marka hore soo dhawaada daawadayaal, taariikhdu waxay ku beegan tahay 14ka bisha koobaad ee Janaayo ee 2026. haddii aynu ku bilowno ciidamo fara badan ayaa waxa ay ka baxeen magaalada Garowe iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan maamul goboleedka Puntland. ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale hubka culus ayaa waxaa lagu arkayaa iyagoo ku sii qulqulaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. qaarkood waa ay gaareen halka kuwa kalena wali ay markaasi wadada ay ku sii jiraan. arrintan ayaana waxaa markaasi lala xiriirinayaa xilli markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku wajahan yahay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. wararka qaarkood oo aynu helayno sidoo kale waxay tilmaamayaan in Puntland ay isku dayeysay maalmihii ugu dambeeyay in ay xakamayso iyo celiso ciidamadan, laakiin gabi ahaanba waxay sidoo kale ay yihiin ciidamo markaasi ka dhagaadeegay amarka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. madaxweyne Dani oo ay si weyn isku hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si aad ah u diidan yahay in la soo dhaweeyo madaxweynaha iyadoona sidoo kale ciidamadan ay si toos ah ugu gudbi doonaan deegaanka Goojacde oo ah markaasi furan ay Somaliland ay hore ugu wareegtay ciidanka maamulka waqooyi bari. ciidamadan oo aad u hubeysan ayaana waxa ay ku dhawaaqeen saraakiishooda in ay sugi doonaan amniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. qorshahooda iyo sidoo kale ujeedadooda ugu weyn ay sidoo kale ay tahay in gabi ahaanba markaasi laga hortago tallaabo kasto iyo wax kasto markaasi la xiriira in markaasi la carqaladeeyo amniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wararka qaarkood oo aynu helayno sidoo kale waxay tilmaamayaan in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu si awood ah isugu dayay in ciidamadan uu ku xakameeyo deegaanada maamul goboleedka Puntland sidoo kalena aysan markaasi tagin deegaanadaasi. laakiin ciidamadan saraakiishooda waxay shaaciyeen in ay yihiin kuwa hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena aysan marnaba yeelaynin oo aysan aqbalaynin in markaasi ay ka joogaan arrintan. waxay sheegeen in madaxweynihii qaranka uu tagayo deegaano ka tirsan maamulka waqooyi bari sidoo kalena mas'uuliyadda ay ka saaran tahay in amnigiisa ay sugaan siday markaasi ay sheegeen. muuqaaladan iyo kuwa kale ayaana sidoo kale ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya qeybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedka Puntland. bal wax yar inala daawo.
waa ciidamadii ugu badnaa oo ka ambabaxay deegaanada maamul goboleedka Puntland kuwaas oo ku sii jeeda qaybo ka mid ah maamulka waqooyi bari waxaana sidoo kale yihiin ciidamadani ku markaas ay ka kontaan shootaanka amniga guud ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha maamul goboleedka Puntland arintan caro xoogan ayuu ka qaaday xilli wararka qaarkood oo aynu helayno ay tilmaamayaan in uu ka maqan yahay deegaanada maamul goboleedka Puntland laakiin madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa amar kala duwan oo isku dayay in uu ku xakameeyo ciidamadan dhamaantood fashil ay ku soo dhamaadeen haddaba daawade aragtidaada nala wadaag ciidamadan ku sii qulqulaya maamulka waqooyi bari ee wata gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale to in ay yihiin kuwa markaas sugaya amniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markana hadii aynu eegno dhinaca iyo maamul goboleedka Jubbaland madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta furay kalfadhiga baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxa uu jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee wadanka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana waxa uu si adag u cambaareeyay aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland waxaana uu intaas uu ku daray in markaasi halka ay aqoonsiga u dooneen ama bay ka raadiyeen in aysan jirin sida uu markaasi uu shaaciyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale Axmed Madoobe waxa uu sheegay in ay tahay in la ilaaliyo midnimada iyo madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isagoona intaas ku daray in aanan cid laga yeelaynin in ay kala goyso dalkan sida uu markaasi uu tilmaamay waxa uu intaas ku daray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in markaasi Somaliland ay tahay in ay la walaaloobaan lana midoobaan walaalahooda koonfurta isagoona sheegay in midnimo iyo wadajir wax lagu qabsan karo sidoo kalena kala qaybsanaan iyo sidoo kale in markaasi la sii kala fogaado ay keeni karto xasilooni darro siyaasadeed sida uu markaasi uu tilmaamay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale Axmed Madoobe waxa uu u goodiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku hanjabay in tallaabo ay ka qaadi doonaan xubnaha mucaaradka ee madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland 20ka bishan meesha loo gaaro isagoona sidoo kale ku tilmaamay in dowladda federaalku ay markaasi ay tahay qowleysato madaxdeedu sidoo kalena ay yihiin kuwa markaasi aan lagu aamini karin masiirka iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu sheegay 20ka bishan in go'aan adag ay qaadan doonaan oo la xiriira in gabi ahaanba markaasi meesha laga saaro dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ay dhisi doonaan dowlad cusub sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Axmed Madoobe waxa uu sidoo kale intaas uu ku daray in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay gabtay mas'uuliyadii saarneed iyo sidoo kale to in ay markaasi ay noqotay dowlad aan dalka iyo dadka aan isku soo dhaweyneynin balse kala fogeynaysa sida uu tilmaamay xilli markaasi maanta uu khudbad u jeedinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu sidoo kale uu shaaciyay in aanan ciidan laga yeelaynin in dalka iyo dadka markaasi la sii kala qaybiyo dowlad lagu mideysan yahay ayuu sheegay in la dhisi doono 20ka bishan hadii uusan markaasi ka soo jawaabin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gogashii ay ugu baaqeen in la isugu yimaado sidoo kalena Soomaalida lagu heshiisiyo haddaba daawade aragtidaada nala wadaag